waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahadsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni waxbarashada oo la socodsiiyo anigoo ah Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame. daawadayaal haatan waxaan gudaha ugu jirnaa dugsiga 26 Juun aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeeni waxbarashada ee daawadayaal daawasho wacan. asalaamu calaykum. daawadayaal haatan waxaa barbarkayga fadhiya maamulaha guud ee dugsiga 26 Juun. maamule ku soo dhaw telefishinka caalamiga ee Badda 24 TV. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة وعلى هذا علي أحمد حسين وحنا مامولها دوسك إسرائيل لحلا تكجون تي في قبضة عساد بانوغو مهندقنا كل هدين بسو زيارتين دوسيكي يقول دون يا إني برنامج كحفرشتنا وسوق هذا هذه آد بانو ديكو مهندقنا وانا نديكو سلوين دوس إسرائيل لحلا تكجون واه دوسيكا مورال دوسي دا بابليكي دولده دوسيكاني waa dugsiga xagga akhlaaqda xagga waxbarashada xagga magaca xagga nadaafadda beeraha meel walba waa dugsiga number 1 ka ah waa dugsiga dawladdu ku majirata ee oo ah modelka marka sidaa darteed ku soo dhawaada qaba firmid ku soo weynaa dadin TV-ga inay badacas waan tan idin ka waramo dugsiga sare ee 26 Juun waa dugsi qadiimi ah waana dugsiga ku magac dheer maalintii aynu xuriyada qaadanay 26 Juun 1960 marka waxa weeye dugsigaasi waa dugsi taariikhi ah marka xaggii halganka laga eego anuu macallin weyn baan ahaa 1980 to 1985 waxaan ka dhigay dugsiga sare ee Qaanlibax Juun baa intii gidaarada nooga soo dhacaan bay ardayda classic ay ka soo saari jireen iyagoo dhagax tuuraya oo halgamaya iyagoo leh talaay aaba malhii talaay hooyoy marka saas uu ahaa waa dugsiga marka dhinac kasta ka eegto waa dugsi taariikhi ah oo taariikh ku leh Jamhuuriyadda Soomaaliland dugsigan wuxuu ka kooban yahay 22 class ayuu ka kooban yahay dugsiga imka dhex joogtay arday dhex sodaan darkeen waxa weeyaan 22 class buu ka kooban yahay 1338 arday baa dhigta 520 hablood iyo inta kale oo inama ah marka waxa weeye waana dugsi xagga waxbarashada qiimo weyn ku leh marka la eego inay examiska hadiya jeer wuxuu examiska qaranka sina dugsiyeedka markasta wuxuu ku jiraa kaalmaha ugu horeeyay ku jiraa magaca maamuuska leh marka aad baan idin soo dhaweynayaa dugsiga lixaas ku soo dhawaada wixii aad su'aalo weydiinaysan oo idinka jawaab insha Allah bal waxaad warbixin kooban naga siisaa waqtigii la aasaasay dugsigan iyo sababta loo aasaasay dugsigan waxa la aasaasay waqtigii la dhisayay jaamacadda Hargeysa oo berigii hore loo oran jiray First July baa dugsi secondary baa ahayd marka Europeankii ayaa dugsigan dhistay marka waxa weeyaan dugsigaas la dhisayo la doonayay in dabaqyo la saaro dabeetana sharafta dabaqyadaas ay dawladdii afweyn u diiday dabeetana waxay ogolaatay in labada dabaq ee jaamacadda Hargeysa ka kooban tahay ay ku eegaato baaqigii ka hadhay dugsigan lagu dhisay marka waxay ahayd 17kii baa la dhisay 17kii baa la galay sidaasuu dugsigan ku noqday dugsi sare waana dugsiga magaca maamuuska leh waxaana waxa weeyaan dugsigani waxyaabaha uu dugsiyada kaga duwan yahay waxa kamid ah waxa weeyaan xagga akhlaaqiyadka iminka haddaad dugsiga dhex gasho inaan afcas helimaysid inaan dhowr lana helimaysid waxyaabaha uu kaga duwan yahay dugsiyada kale ee isku dhiganahay iminka 1300 haddaad dhex gasho kasoo heli maysid inaan intuu dhowr leh waayo disciplineka dugsiga ka mid tahay
markaa dee ardaygu markuu yimaado dugsiyada kale ka yimaado dee ardaydiisu la qabsadaa qawaaniinta iskuulkunbuu qaataa mana arkaysid arday akhlaaq xumo macallin la dagaalamaya ya marka waxa weeyaan macallimiin wanaagsan baa dhigtaa xiisa bixisa waxbarashadu si sharaf leh bay u socotaa waana dugsiga loogu jecel yahay oo had iyo jeer foomanka marka imikaanu qaadanayno dugsiyada kale oo aan arday u tegin ayuu kayagu buuxsamaa taasaa ku tusaysaa dee populationka Hargeysa sida ay u daneeyeen dugsigan maxamuud moogo waa laga yimaadaa waxaan ku rahdaayay kililka waa laga yimaadaa xaafadda leeyahay magaalada Jimcaale waa laga yimaadaa daloodha laga yimaadaa inay koodbuur baa laga yimaadaa inay ishaboor ma laga yimaadaa waa dee dugsi caan ah waa arday kala duwan oo ka timid macal gobolada ardayga ka soo bedesha ceerigaaba ama sanaa ka soo bedesha dugsigan u yimaadaa taasaa ku tusaysa dee in ilaa goboladu ay ka warhayaan taariikhda dugsiga haddaba maadaama tahay macallin weyn oo ilaa 1900 iyo soo dhigay jarjarkii wax bal warbixin kooban waxaad naga siisaa waxbarashada wallaahi dee run ahaantii waxbarashadu waxa weeyaan waad ogtahay oo dee dalka dhan wax allaala waxa imika ka shaqeynaya inaan arday noqon dugsi soo marin ma jirto marka waxbarashadu dee qofka way dhistaa waxbay ka dhigtaa marka waxa weeye run ahaantii dee waxbarashaduna waxay u baahan tahay wasaaraduna imika aad iyo aad waxay himiladeedu tahay ay go'aan ku gaadhay inay tayadii waxbarashada sare u qaado dalka oo tayadii waxbarashadii wanaagsaneed ee aynu caanka ku ahayn inaynu dalalka kaga qayb gelinay East Africa oo dhan aynu wanka ku gali jirnay intayadeedii dib loo soo celiyaa lagu gaadhay marka waxa la doonayaa in dugsi hoose laga soo bilaabo ilaa dugsi sare marka wasaaraddu waxay ku tala jirtaa inay macallimiinta mushahar wanaagsan oo deeqo oo inay ku filan oo in loo sameeyo qorshaha wasaaraddu ku jirta oo maalin walba istabaalaqaday inagoo dee eegayna taageena in dawladda yar baynu nahay dalka dee ma tartami karno laakiin dee inta taageena waxa go'aan wasaaraddu ku gaadhay inay tayadii waxbarashada adkayso oo systemka imtixaanaadka ay adkayso oo maaragtay ay examiska adkayso oo ardaygii noqdo arday dhisan oo shaqaysanaya waa inuu noqdaa waxa kale loo baahan yahay oo wasaaradda iyo dawladda waa waajib ah tiradan badan ee ardayda soo baxaysa in sanad kasta wixii awood dawladdu tahay ay shaqaalayso oo mislankii kale shaqo qarannim kasta loogu diray oo kale maxaan ku rahdaayay hadii 300 ama 500 oo askar laga qoro dee waxay noqonaysaa ardaygii wuxuu yeelanayaa hiwaayad buu yeelanayaa mustaqbal buu yeelanayaa wuxuu xigsanaya bariga hore ardaygu wuxuu oran jiray ilo waa inaan jaamacad aan galaabu oran jiray maanu jaamacad gelin dee marka waxay ahayd waxbuu xigsanayay imikana waxa weeyaan dee noloshii xagga sare aynu kaga nimido marka ilmihii baa dee halkii ugu dambeysay ayuu taagan yahay marka waxa weeyaan waxbarashadu waxay ku wanaagsan tahay inuu ilmuhu ay qiimo ku leedahay hore ugu maraysaa marka dee uu higsado ardaygu uu arko target yeesho yiraahdo halka waa inaan gaadhaa marka taasay waxbarashadu ku wanaagsan tahay marka waxa weeyaan waa inaynu dalbaabo dagaal helayo dhib heshay baynu nahay waynu soo kabanaynaa marba marka ka dambaysa dee marka waxa weeyaan ruu maalin laguma dhisin marka waxa weeyaan waa in ciidii wali joogtaaba ay wax ku kordhisayo kii kale ka dambeeyo wax ku sii kordhiyayo dabeetana marka dambe halkii loogu talagalay baynu gaadhaynaa insha Allah bismillaah kariim wada shaqeyn teleg ayaa idin ka dhaxaysa dugsiga iyo wasaaradda waxbarashada dee waxa weeyaan waa dugsi ay dawladdu xukunto oo qacanteeda ku jira awaamiirta wasaaraddu ayuun baanu u hoos fadhinaa wixii ay wasaaraddu keenta amara ayuun baanu qaadanayo oo ku amal falnaa waajibaadkii ay noo dhigtay uun baanu noo jeexan oo aanu wadnaa wax ka duwan anagu waa dugsi toos u hoos taga wasaaradda waxbarashada oo amarkeeda iyo taladeeda iyo silibiskeeda iyo awaamiirteedaba ku shaqeeya iyaga uun baa dee noo aanu kolba amar ka qaadanayo wixii kolba ay ka soo baxaa ayuun baanu fulinaa imse dufcadood ayaa ka baxay dugsiga anigu intaan joogay oo kaliya anigu 15 sano joogaa 15 lod baa ka baxay aan ku soo gaaray ya tirada dhigatay iyo inta baxay keeba badan mika waxa weeyaan marka haatumada taasmeeyo tirada baxda badan way sanad kasta 450 ilaa 350 tira u dhaxaysa ayaa sanad walba baxda 15 sano inta markaad ku dhufato imika magaalada xafiisyada markaan tago meel kasta ardaygii baan u tagaa
soomaad garan macallinku inta kale uu leeyahay markaasaa sare la ii qaadayo markaasaa la ii fariisiyaa markaasaa sharaab la ii siiyo anigoo mustareexa ayaan ka soo baxaa waxaan u baahnaana la ii dhameeyaa marka hadda midhihii aanu beernay baanu guranaynaa hay waayo waxa ugu wanaagsan bini'aadmiga ninka dad xanaaneeya ugu wanaagsan yaa marka waxa weeye marka dad xanaanayso dee meel walba ardaygaagii baa jooga yaa marka wallaahi marka waxaad oranaysaa yacni noloshan ku noolay habi baan ku noolay waayo waxa weeye farxad baan mar walba la kulnaa dee waayo xafiiska maalintaad u baahatee 10 arday oo ardaydaadiya oo intaasoo sanood ka kala baxo shaqaalaha markaad ugu tagto yaa ee lagu soo dhaweeyo dee nolosha farxad ka weyni ma jirto yaa marka waxa weeyaan halkaanu ka ciidaminaynaaba waa intaa yaa suuqa waana la ikraamayo meeshan fadhiisanaba waa macallinkii kursiga lagaaga kacaya markan meelaha hoteelada tageen fadhiisanayo een kursi waayo nin un baa iga kacay weyn oo ilaag dee marka waa sharaf ka weyn oo aan heli lahaa ma jiro marka waxa wallaahi cis iyo sharaf baan ku noolahay waayo waxaanu beertayadii ayaanu guranaynaa dee oo tacabkaygu waa intaa yaa marka nin meeshu tagaba la ixtiraamaya dee ilaa madaxweynaha anagaaba ka cawaansan ma xiiseeyaan ardayda waxbarasho dugsiga lagu dhigo laa ilaaha ila allah dee waxaad ku garanaysaa iminka 22 class baa ku jiray bal arday dhex maraya soo maad garan marka waxaabay yidhahdeen jun waa janno halkan haa saasay u bixiyeen soo maad garan jun waa janno bay yidhaahdeen dee bixisa macallinka meeshan nidaam wanaagsan baa jira maamul wanaagsan baa jira macallimiinta iyo maamulku istixgelin iyo sharaf bay isku leeyihiin wada jir bay wada shaqaystaan dugsiyada kale xoog baan uga duwanahay marka waxa weeyaan waxa yare ardaygaanu ka qaadana macallinka wax wanaagsan oo u qalma ayay u noqotaa marka waxa weeyaan taas ayaanu ka hormarsanay salinkii kale de sheerkayga ma oran karo waa wadiyaabasa private-ka waanu ku dhownahay hay hadii dawladdu de waxooga ama garanaysaa ay nagu caawiso waa gaaraynaa aad baad mahadsan daawadeel haatan waxaa barbarkayga fadhiya maamulka ku-xigeenka dugsiga 26 Juun Muxyidiin Cabdishiil kusoo dhawow Muxyidiin telefishinka Badda Cas ayuu mahadsantahay Cabdil Asir aadna ugu dhawahay telefishinka Badda Cas oo saakana soo booqday dugsiga sare 26 Juun soo dhawaada la adiga Rashiid saaxiibkii aad baan idin salaamaya aad baan anaguna kaaga qaadnay bal warbixin kooban waxaad naga siisaa dugsiga 26 Juun wallahi horta runtii sidoo ogtahay dugsiga sare 26 Juun waa dugsiga ugu ballaaran marka la joogo gobolka Maroodijeex wuxuu ku yaalaa bartamaha Soomaaliland baan soo dhan karnaa in afarta kaarakoona ardayda ka timaada haday soo raacaan basaska meel dhex kaga wada deegaano suuqa oo suuqin waxba ma jiro runtii ardayda ugu badan ee dhigataana waa dacalada magaalada Maroodijeex kornayaashiisa ay ardayda ugu badan ka timaada oo arday aad iyo aad u akhlaaqad badan runtii iskuulka wax la galaa 7 barka 8 albaabkoon xidhnaa nidaamka iyo ardaydu kala dambeyn ma leenahay ardayda marka aroortii la soo galo 7 waa la isxaadiriyo xaadiris baa dhaca ardaydu wax nuugan aroortii albaabka laga xidhay ee habsaantay waxa kala runtii nus saaca kadib marka laga soo noqdana waanu xaadirnaa 2 jeer ardayga la xaadiriyaa wax nuugan kuwa xagga dambe ka jara iyo kuwa xagga hore ka jara telefoonada waalidkana waanu wada haynaa markay soo galeen ardaydu sanadka ugu horeysay ayaan waalidka 2 telefoon ka qornaa waalidka wax noogeysiinaa inuu ilmihiisa maalinta maqan yahay inuu nusaaci jaray inuu 4 cisho maqan yahay inuu 5 cisho maqan yahay waalidkan uu yeedhana ardaygu waxba ka warhaynba ayuunba waalidkiisa office-ka kula kulman runtii marka aad iyo aad baynu oran karnaa nidaamka iskuulka iyo macallimiintuna habsan ma yeeshaan iyaga laftooda aroortii buug baa la diiwaangeliyay oo la xaadiriyaa macallimiinta laftooda buugaag bay saxeexaan nin walba saacad u imaado magaciisa saxiixiisa aroortii intaas laga dhigaa runtii iskuulka kala dambeyn iyo maamul adag buu leeyahay maamul Cali Axmed Xuseen oo runtii maamulo muddo badan anigoo arday meesha maamulo ka ahaa oo si aad iyo aad u adkeeya iyo maamuna Aamina oo runtii maamulka ku-xigeenka dugsiga aniga iga sareysa oo iyaduna aad iyo aad xagga haweenka iyo iskuulkaba ugu roon oo runtii aad soran karto 10 nin bay u dhigantaa oo aad dadaal buu dadaashaa xaseer oo dhinacayga fadhiyo saaxiibkay isna maamulka ku jira aad iyo aad Mukhtaar iyo Saleebaan aad buu nidaamka iskuulku adag yahay ardayduna runtii markay aragto macallimiin soo jeeda oo aan ka maqnaanin xiisadii oo macallin walba uu helayeen waxbaro ardayga aad bay ugu soo dhiiradaan macallinka cashar diyaarinta soo diyaarsada maamulka ka eega ardayga dariiskaanu ka eegnaa akhlaaqdaanu ka eegnaa moobiladanu ka joojinaa ardaygan moobil ka qaadno 7 cisho qaanada kaga xareynaa ilaa week baanu ka haynaa ardayga waxay taasi tusaysaa runtii inuu ardaygii una ku soo dhiiray inuu moobil soo qaato marka aad iyo aad wallahi nidaamka iskuulka waxa oran karnaa aad buu wanaagsan yahay xagga nadaafada xagga cleaneriska laba haweenaa ka shaqo gala security-ga 3 nin baa u taagan hadii jeer heegan ka isbedbedela marka runtii aad bi iskuulka wallahi aan oran kara aad buu fiicay xaaladiisu
war xaaladda ardayda markay joogaan goobta waxbarashada runtii dee ardayda sad ka war hayso waqtigan iminka la joogo waalidkii ilmihii dhalay baa ka adkaan kari la laakiin anagu inta ilaahay nagu ogyahay gacan biraanu saarnaa ardayga anagu ku tacadiyeyn laakiin waxaan tusnaa inuu waxbarashada ardaygii wax baranayaana diyaar meeshu ay u tahay ardaygii kalena inuu riwaayad una la iman ayaanu tusnaayo ardayga waalidkiisaan u yeegnaa si aan kugu sheegay telefoon ka daba dirnaa labada arday islaaya bedelkaanu siinaa runtii nidaamka iskuulku adeegiyo laba arday isma laayeen inuu ashkatay maadana wax koodeen macallin ardaygaasaan iskaga taaglaayay qabo sababtoo wuxuu ogyahay hadduu gacan qaado inuu bedelka la siinayo marka runtii aad buu nidaamka iskuulku wanaagsan yahay baan ka oran karaa hanaanka waxbarasho ee dalka maxaad ku soo kordhisay ayaa la oran karaa dadtiin iskuulka 6 ka jun runtii hanaanka waxbarashada ee dalka qayb libaax laanu ka ciyaarnaa waxaan leenahay library bugaagtu yaalaan bugaag nooc walba oo iskugu jira ilaa kutubtii quraanka baa taala library-ga bugaagta 7 subaxnimo ilaa 5 galabnimo uu furan yahay computer lab baan leenahay isaguna konton computer yaalaan internetkii baa iskuulka ku jira ardaygu markuu nus saaca soo baxo sideen ognahay Cabdinaasir ardaydii hore markii nus saaca soo baxaan fasaladii ku dhex ciyaari jireen arday walba hadduu doono internetkiisa yar wuxuu ka soo download garaystaa internetkaasu galaa sidii dad muddo kale ay run ahaantii u dhex isticmaalaan iskuulka dhexdiisa computerkana maqal iyo muuqaal baan ardayda ugu dhignaa labada sano ugu horeeya markaa run ahaantii waxaan odhan karaa iskuul bixinaya ma jiro maanta 80 anagu laakiin 80 baanu bixinaa ardayga shahaadanu siinaa ardayga labada sano hore waan la dadaalnaa waxa kale oo kusoo kordhinay library-gu 7 subaxnimo ilaa 5 galabnimo shaqeeya ardayda foorada iyo ardayda dadaalaya bugaagta way qaataan way soo celiyaan way ku dadaalaan bugaagta aad iyo aad baan wallahi oran karaa iskuulku wax badan buu ka taraa aad bood ogtoo wax la yiraahdaa adoo has sheegin hal lagu sheegay marka runtii anaga waaqica magaalada iyo dadku way og yihiin arday marka form 4 la qaaday imtixaanada arday mobile laga ururiya arday baa meelaha carcarto wax samaysa anaga runtii dhowr iyo 10 sano imka u dambeeyayba ardayda mobile lagama qaado arday la xirana ma maqalno intaan wax ku tusaysa inaanu nidaamka ardayga marka horeba sii barno oo ardayga nidaamkii mobile lagu qabsanayo og oo nidaamkii og inuu hadhow talo waxbarashadiisii oo ayna ka galaafan imtixaankiisii marka waxaan oran karaa runtii iskuulku beeruley laba beerood buu leeyahay beeraha iskuulka arkaysaa way wada beereen beerta iskuul liimaanta ma jiro oo dadka Cabdinaasir oo cagaal isla dul maray haddana arday qoro geed jabin kara kuma jiro taasina waxa ku tusaa nidaamka iskuulku iyo kala dambeynta ardayga iyo macalinka iyo maamulka marka runtii aad iyo aad baan u dadaalnaa ma jirta arday library-yada ku xidhan markaad furteen oo mar walba wax ku akhrista way jiraan oo ilaa imkadana lagu jiraan soo tusi karaa in wax doonayna inaan soo tusaba hadii la heedaado waxa kale oo haybadu leenahay hablo dhagala ayaa garab jooga anigoo runtii ay daraad ahayd maalintii naafada adduunka oo nasiib aan u yeelan inaan ka hadlo TV laakiin maanta maadaama badda casna soo booqatay oo uga mahad celinayo arday dhagolayaala oo arday xarfaana ardaydii imka naga baxay 2-3 sano u dambeeyay arday dhagala baa naga baxay ardayda dhagahli kuwa dhagaha qabay ka xarifsan ma soo kartaa حتى واحد كيران حقي أي يسولون لهم دجالات هاي أو حمو برنكريس إن يجوا نفتو دجالان إن أنتي ساحبة دجال فلسطينيين برتقاب كالله والله الله قاب كأرضية الله الله إن أنتي حشي كرتو إن معلكم حيرة وران كرتو إن يجوا مع كفر وناقصين حق هاي رايتينك أيرنا أنتي الله بدي هبلا دايما كسرنا كده وين نجبح لا بدو بيبي كوبحين لا بدي هرنا منا أبي كوبح من بيبي كوبح ذي مركب ويشكول أي دجال يش حتى كسو هيرتان وحق أمني جايين بتجليه ده كلا طمين تبعي أرضية تشعليهين مركب وخون دين عايق فرديا أرضية نيم كذا كسا وأرضية فونتريا أرضية كلا أرضية فونتريا أرضية لحظة وفونفور سنة كاو قدام يصير سكول كده ما ينسى لا بدها هبلاد وفورنا إن أنت نوا فونتري مركب صدق هو فونتريو من نوا فونفور من نوا فوان لا بنوا فوان مركب رانتي أدي بود دالان إن نوا تو إن نهال تو وين مركب رانتي هبلهن وحلاي ما أنت تقول ياش أدونك وحلاي runtii hada dhagaha naafo ka tahay amba lugaha aad naafo ka tahay amba gacmaha naafo ka tahay maskaxda naafo kama tiid dadaalkana qofku ba isku haya ilaahay baana keena qadarka kuwa ku dhacay shalay soconay maanta gaar la dhacay lugtala waxa leeyahay niyad jabina lugtiini wali wad qabtaan hadaad maskaxdaada qabto marka runtii aad iyo aad baan u dhiirigelinaa waana kuwa imka hada soo iyago hadlaya imka nala hadlaya waan ku turjumi karnaa waan la hadli karnaa marka mid iyo labaad wareysano waan ku sheegay ablo galaaska iskuulka ku dhex bartaan inaan waa form 4 galaas 7 arday ka tirsantahay laba hablood waa form 4 galaas 7 ardayda caadiga wax la dhigtaan sida caadiga waxna ay u qaataan una qoraan una akhriyaan wixii ay su'aalay garan waayna macallimiinta dib u la yimaada wixii kalena anaga xasama ka caawin office nooga yimaada caadi gooni wax loogu dhigo laga sooca oo iyaga wax loo dhimaa ma jirto
caadi wax u dhigtaan. iminka maxaad odhan kartaa hablaha dhogolayaasha iyo ardayda kale keeba xariifsan baad odhan kartaa wallahi runtii markaan kuwa dhagaha qaba iyagaaba ka xariisan odhan karaayo deynan office la noogu keeno amba inan wax lagu soo saaro amba buugeeda laga waayo maaha waa ardayad isku kalsoon buugeeda iyo casharkeeda way ka adagtay sida kuwa dhagaha qaba loogu qabsado layligii mee casharkii maxaad uga soo shaqayn weeday buugaagii tus macallinku intaas soo bilood u dhigayay oo ilaa buugaagii balkeen qaar baa buugii way soo iloobay iyo buugii way iga lumay kuwa ku odhanay laakiin iyagu waxooda way xafitaan waa arday xarfaano waxooda xafitaa oo qalinkooda iyo nidaamkooda bay ilaashada hay bal sida wax u bartaan bal ka waran waxbarashada ka waran aad bay u fiican tahay foonfoor haddaad tahay imika ka waran xaaladada aad in yar baad maqlaysa imtixaanka soo socda asalaamu calaykum ayna tidhahani calaykum asalaam baan ku leenahay ana saabeen casharaanta qaar bay fahmaysaa qaarna ma fahmayso ayay tiri marka insha Allah iyadana lafteeda inaanu sii dhiirigelin doonina ardaydu fiican sax weeyaan saabeen carabi diinta runtii waxa dhacda adiga jeer carabi diinta inaan loogu soo dhigin dugsiyada hoose dhexe anaguna aan dugsiga foowanka carabi diin ku dhignay sida idinkuba ogtiin carabi diintu ma fahmayno ku adag carabi diintana waxa uu qiimeeyaa xafiiska imtixaanaadka hadiya jeer ayaa xafiiska imtixaanaadka ka caawiya carabiga diinta oo iyaga imtixaan qaar la siiyaa oo marka laga qaado form 4ka oo sanadkii ku cusubtay iskuul fiima iskuulka ka waran وفعلا سوريا وناس تفعل الحمد لله سفيان ما شاء الله الحمد لله بتي اسكولك هذه اد بو فيعان yahay wana dadaalaysa ma ilaa foorka ma sii wadanaysa iskuulka باور ay foon baatay foon foor marka noqoto ma sii dhamaynaysa iskuulka باور وفريا باور صابت ما شاء الله وفور وفريا معنا وفهميها وصح لك عشف وسفي حنان هلا معنا بس نسورة سوفي على عشق أيه معنا سوفي على مامرو نعشف مقارنة وفيها بيا عش بس يوم معنا مامرو سوفنا شيء صحيح waxay tiri casharaanta waan qornaa macallimiinta iyo maamulku way fiican yihiin iskuulku wuu fiican yahay waan dadaali doonaa waana ka sii badinayaa insha Allah iskuulka wax baraan oo ay nagaga daydaan ayaan jeclaan lahaa run ahaantii oo ardayda ayna tusin inay dhagalayn maahe maskaxdu way qabaan qofka maskaxda wax ka qaban baa la oran karaa wax ma baran karo laakiin qofka haduu luga leeyahay ama gacmo leeyahay ama indha leeyahay run ahaantii wax walba uu baran karaa marka waxaan leeyahay ku dhiirada inaad had iyo jeer bulshadiina wax la qaybsataan waxaad warbixin kooban naga siisay laabkan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مادكم mahadsantihiin boqoshadan soo boqoteen TV-ga badda cas 24 hours halkan aan joognaa waa laabka kombiyuutarka dugsiga sare 6 Juun laabkani waa laabka kaliya dugsiga dawladda marka la eego functional shaqeeya ardayda for one class-ka waxa la baraa software application-ka iyo hardware-ka ardayda kale ee form 2-ga iyo form 3-guna laabka waxay u isticmaalaan casharo waxa ku jira science-ka dhan ba ku jira casharadii oo daawasho ah oo visual ah oo qoraal ah ayaa intay soo fadhistaan bay ka daawadaan oo ay ka isticmaalaan wixii macluumaad ah iskuulka waxa ku jira internetkii sidoo kale ardayda nusaacaha waxay isticmaashaa internetka ay wixii macluumaad kala baxaan ardayda for one-kana waxa loo dhigaa sidoo ardaygu kombiyuutarka u baran lahaa 6 program applications-ka iyo hardware-kii oo xisad kamid ah xiisadaha dugsiga 3 Juun way jiraan iskuulo kale oo la kombiyuutarada labs laakiin Juun wuxuu ka duwan yahay iskuulada kale waa laabka kaliya ee functional-ka ee shaqeeya inkastoo ay maanta ardaydu aanay lahayn xisadii practical-ka way leeyihiin theory laabkani wuxuu ka duwan yahay dugsiyada ama dalka baan ka duwanahay waa laab functional oo shaqeeya oo dhammaan waxa ku jira maadooyinkii science-ka oo dhan baa ku jira oo laga helaya macallimiinta qaar baa isticmaala say macluumaadkii uga baxaan internetkii waxa marka library-ga runtii waxaan sheegayaa inuu macallinka biology-ga sidoo u dhigay chemistry-ga iyo maths inay u dhigtaan iyaguna library-ga jadwalku ku jira waa xiisad kamid ah xiisadaha iskuulka ku qoran marka galaas walba xiisad buu leeyahay galaas walba iskama imaaday galaas walba maalintiisu imaada xiisad buu ka leeyahay xiisadaha kamid ah marka imika buugaagtaad arkaysana saa u yaala waxa ka kacay imika galaas baa ka baxay
galaas kale markaa imika male hadhowna galaas kala yeelanaya maalinta waxa laga yaabaa 3 galaas inay yeeshaan ardayda xarfaanta ee runtii aan isleeyahay tubtanka idin galayaan si gaar ah ugu xidhan yihiin buugaagta yaala waa buugaagtii science-kii maths-kii history-gii geography-gii iyo buugaagtii novels-kii sheekooyinkii qornaa iyo kuwa Soomaaliya iyo kuwa Carabiya nooc walba way yeelaan daawadayaashada qiimaha qadarinta naga mudan oo intaasi waxaan ku saafeereynaa barnaamijkeeni waxbarashada oo la socodsiinayay anigoo ah Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame daawadayaal barnaamijka halkaad kala socoteen waa shaashada muqbaahiyaha caalamiga ee Badcas 24 TV xarunta guud ee uu ku leeyahay magaalada Hargeysa daawadayaal barnaamijka qaybta duubida waxa qayb lixaad la ka qaatay Cabdirashiid Faaye dhanka habeynta barnaamijka isaguna waxa qayb lixaad la ka qaatay Mustafa Aadan Site oo isla markaana suurta galiyay inaad sidaas quruxda badan u daawataan daawadayaal inta aynu ku kulmi doono barnaamijka xiga aniga Cabdirashiid Faaye waxaan kaga tagnaa sidaas iyo nabadgelyo